deeqdan raashinka ah oo isugu jirtay bariis, sonkor, bur iyo saliid kana timid jaaliyada qurbaha joogta ee ka soo jeeda deegaanada hoos yimaada magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose aynu soo wakiisheen ururka samafalka Shooble ayaa maanta lagu wareejiyay nabadoonada deegaanka Ceelasha Biyaha oo ka mid ah deegaanada ay soo maciinbadeen dadkii ugu badnaa ee ka soo barakacay fatahaada webiga Shabeelle uu ka sameeyay magaalada Afgooye ee deegaanada kale hoos yimaada Kaltuumo Maxamed Nuur oo ah gudoomiyaha jaaliyada qurbaha ee ka soo jeeda deegaanada hoos yimaada magaalada Afgooye oo deeqdan u soo wakiilatay ururka samafalka Shooble ayaa shaacisay in ay sii wadi doonaan taageerida dadka tabaaladaysan ee ka soo barakacay fatahaada webiga Shabeelle ee ku dhibaataysan duleedka magaalada Muqdisho Cali Saalax Cabdulle gudoomiyaha ururka samafalka Shooble oo ugu horeyn ka warbixiyay deeqdan raashinka ayaa sheegay in inkastoo aysan awoodin inay wax wada gaarsiiyaan dadka ka soo barakacay fatahaada webiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Afgooye iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ee haatan ku dhibaataysan Ceelasha Biyaha iyo nawaaxigeeda haddana ay go'aansadeen in intii tabartooda ah ay maanta ku wareejiyaan waxgaradka deegaanka Ceelasha Biyaha gudoomiyaha Cali Saalax ayaa fariin u diray dadku eebe wax siiyay iyo hay'adaha samafalka inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan duleedka Muqdisho anagoo ah ururka samafalka jaaliyada dibadda maanta waxay noo soo idmadeen adeeg aan gaarsiinayno walaalaheena ku tabaalaysanaa fatahaadii ka dhacday Afgooye maalinlaati aan u gudbinay warbixin tuulooyinka hoos yimaada Afgooye sida Cabdiyo Dibile Maracade Doonka tuulooyinkaas dadkii ku dhibaataysnaa walaalaheena jaaliyada dibadda ah oo ugu horeysay gudoomiye Kaltuumo oo ay soo igmadeen waxaa maanta soo gaarsiinay waxyaabihii noo soo igmadeen ay ahaa deeqdii waxaana wax gaarsiinay maanta 70 qoys 70kaas qoys waxaan ku wareejinaynaa nabadoonadii deegaanada iyo odayaasha deegaanka si ay u gaarsiiyaan dadkii fatahaadii waxyeelaysay annagoo ah ururka samafalayaasha ee u qaabishan dhanka fulinta walaalaha jaaliyada aad ay u mahadsan yihiin waxaa kale intuu baaq u diraynaa hay'adaha samafalka iyo hay'adaha dawliga ah ee ka qayb qaata arrimaha samafalka waxaan rabnaa inay soo gaarsiiyaan waxyaabaha samafalka ah ay dadka tibaalaysan ee deegaanada Afgooye ku hareeraysan saasaan ugu baaqayaa dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalkaba weli wax soo gaaray ma jirto laakiin waxaan filayaa waxa loogu talagalay dowladda Koonfur Galbeed inay soo gaarsiin doonaan walaalaha ee ku tabaalaysan deegaamada Afgooye waxaan aad u mahadcelinaynaa dadka sadaqadan soo igmaday Maxamed Nuur Dheere oo xubin ka ah ururka samafalka Shooble oo ah urur dhalinyaro Soomaaliyeed oo si iskooda isku abaabulay ayaa dhankiisa ka hadlay deeqdan ay maanta ku wareejiyeen nabadoonadan aliisa dhibaataysan oo bulshada degmada Afgooye oo tuulooyinka hoos yimaadaan sida Cabdiyo Dibile iyo tuulooyin kale oo hoos yimaado iyo Buuladoonka tuuladahayo oo Cabdiyo Dibile hoos timaado maanta walaalaha muxsiniinta ah ee dibadda jirto walaalahooda deeqda macna ay soo dhiibeen waxaan si nabadoon ah u gaarsiinay walaalahooda saa u jeedaan raashinkaas meesha yaalo aad iyo aad ugu mahadcelinayna ururka samafalka Shooble waqti walba wuxuu diyaar u yahay inuu walaalihiisa uu gaarsiiyo deeqda loo soo dhiibo jaaliyada dibadda jirta u soo dhiibto inuu si aamin ah oo maxalli jiray sheegada uu gaarsiiyo dadka bulshada dhibaataysan degmada iyo tuulooyinka hoos yimaado ururka samafalka uu soo dhaweynaya qof walba ka qayb qaadan karto samada bixinta walaalahooda insha Allah kulli waan ka sii bixi doonaa ugu dambeyn qaar ka mid ah nabadoonadii maanta lagu wareejiyay deeqdan raashinka ah ee isugu jirtay sonkor, bur, bariis iyo saliid ayaa ka mahadceliyay iyagoo ururka samafalka Shooble iyo sidoo kale jaaliyada qurba joogta ah ee ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada Afgooye kaga mahadceliyay sida ay dhibaatada ula qaybsadeen dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay fatahaada webiga Shabeelle uu ka geystay degmada Afgooye iyo tuulooyinka hoos yimaada kuwaasi oo hadda ku dhibaataysan deegaanka Ceelasha Biyaha iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaana soo gaari maanta ay taariikhdu tahay bisha 8 2020 hijradana ay tahay
bishii 12aad 13 1441 waxaana soo gaaray deeq iskugu jirta bariis sokor saliid oo loogu talagalay muslimiinta waalahayna oo fasahaadaha guryahooda iyo anta beerahooda ka raray marka insha Allah tacaala waxay iskugu jiraan deeqdaas bariis iyo sokor iyo saliid waa kuwan waxay noogu wareejin anagana inaan walaalahayna u sii gaarsiino walaalahayna soo dhiibi oo jira qurbaha oo jooga qurbaha iyo dibadaha waxaan ka codsanayaa waa mahadsan yihiin sidee wax u soo dhiibeen ayaa anagana u sii dhiibeynaa nimanka gudyaasheena u soo dhiibeen waa noogu wareejiyeen marka insha Allah tacaala alxamdulillahi rabbil caalamiin iikana meel ay ka filhiin Allah ka siiyo waxaan dhahaynaa dhibka Allah ka qaado ummadda islaamka annagana waxaan dhahaynaa ilaahay hana la garab galo waxaan ka rabnaa saan iyo si kasii badan walaalaha wax gaareen wax halaala yar ma ahan wax badan waay maalin horena waa soo sheegnay tuulooyinka waa soo tiranay laakiin waxaa la yidhahdaa wax yar wadaagin wax weyn ma wadaago kistaan iyo kis kasii badan buu adiga rajahaynaa dadkana ilaahay ha ka qaado culeyska iyo dhibka annagana ilaahay hanala garab galo inaan wixii noogula soo dhiiba aan gaarsiino idinkana waxaan leenahay ilaahay jisa iyo abaal ilaahay hadiga siiyo iyo ajir iyo xasanaad aan soo koobi karin walaalaha muslimiinta wax soo sadaqaysteen waxaan leenahay gacantiina ha furnaato walaalihiin muslimiin ha dhib qabaan annagana waxaan leenahay waa u mahad celinaynaa gudoomiyaha ugu horeeyo ma gudoomiye Kaltuumo iyo jaaliyadaha garbaheeda ay kaashanayso mahadaha ka gaarto waxaan leenahay jaaliyadaha kaleentana walaalihiin waxaan isku boorinaynaa ama isku wacayna waxay tahay walaalihiin dhibaatada gaartay maahana nin dhargan wax siya idin dhihimayno nin shalay taajir ah oo maanta faqiir iska noqday dhibaato gurihiisa iyo xoolihiisa burbureen ayaan waxaan idin leenahay ka qayb qaata maanta nin walba ninkii wax haysto walaalka maanta haduu wax helo bari ayuu ku kaabi doonaa jaaniskaasi ka faa'iideyso ayaan leenahay waana nagu wareejiyeen walaalaheen sidii nagu wareejiyeen ku mahadsan yihiin dadkii ay ka soo qaadeen mahad weyn ayaan u celinaynaa aan rajaynaynaa anakana ilaahay nagu maceebeeyo sida ay noo soo gaarsiiyeen inaan ummadii dhibbaneed aan mas'uuliyadooda qaadnay aan si wada jir aan u gaarsiino si ilaahay dartiisa oo ilaahay raali ka yahay Aweys Bashiir Cabdiraxmaan Aweys Timo Sal Cable TV Muqdisho